cabdikariin xuseen guuleed oo ah musharax u taagan xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya ayaa ka hadlay kiiska dacwadda badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya. kiiska badda waxa uu ka mid yahay qadiyadaha waaweyn ee dalkeena waana dhaxal umadeed oo ka madax bannaan siyaasad iyo caadifad gooni ah. maanta waxay Soomaaliya u tahay maalin ay adduunka tusayso una soo bandhigayso dhab ahaanshaha doodeena. waxaan guul u rajaynaynaa kooxda Soomaaliya matalaysa ee ku sugan maxkamadda ICJ. Soomaaliya iyo Kenya waa laba wadan oo daris ah oo aan kala guuri karin, dano iyo masaaliix aad u fara badan ay ka dhaxeeyaan kana dhaxayn doonaan. sida caadiga ahna dalalka dariska intooda badan waxaa dhex yaala qadiyado waaweyn oo taabanaya arrimo dhuleed, badeed iyo dadeed intaba, laakiin taasi kama dhigna in la burburiyo xiriirka darisnimada iyo wax wada qaybsiga dalalka iyo shucuubta. inkastoo sida aan xogta ku hayo Kenya aysan maanta dhageysiga dacwadda xaadiri doonin, haddana waxaan weli ku rajo weynahay in Soomaaliya iyo Kenya ay wada ixtiraami doonaan xeerarka iyo shuruucda caalamiga ah ee garnaqsiga, sidoo kalena ay wanaajin doonaan danihii caamka ahaa ee waqtiga dheer ka dhaxeeyay labada wadan. sidaasi waxaa yiri musharax madaxweyne cabdikariin xuseen guuleed oo ka hadlayay dooda dacwadda badda ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya oo maanta si rasmi ah uga furantay maxkamadda ICJ. Jumbo sirtu waa dhandanka